السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا مسلمين والسلام يا مركو الرئيسة مرلباتك وحي شيء hooyo ardo qoralle xasan waa hooyo 15 sano la tacaalaysay inanka xanuunsanaysa hooyadan oo ah hooyo danyara ayaa dhammaan walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed ka codsanaysa in Ilaahay dartii ay ku caawiyaan waxay awoodaan si ay inanteeda xanuunsanaysa ugu hesho daryeel caafimaad. والله يا مسلمين والسلام يا مركو الرئيسة مرلباتك وحي شيء إن أنا قف محيي إسكت بعتيسان إن أنت هنكاتشفت وحنا سلسلة دشان يتوصل هذا قاعد يحجر يعدنا وعوي قفنا مركو ودقنا اللي هي تذكر عليهين صح إلى هي ترتي أيام دون أيام إلا يقول عاوية وانكو بعتيسان هاي بعتكم أنا جبت كل الحنون صغير وأن لوها كرين oo kursiga mooyaan aan dhulka fadhiisan karin marka waxaan hooyo doonayaa macaan in ummadda muslimka ah meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa si islaamnimo ah oo muslimnimo ah in la igu soo caawisaan dhaqtar bay u baahan tahay maxalmaalaya xun haya ma jirto awood ma lihi waxaan ku dhaqaaleeyo ma hayo guriga aan ku jira hadda gabadh islaameed ayaa iska leh bilaash ayay ii soo gelisay marka aan awoodi kari waayay kiradii ayay tiri dar ilaahay ugu jira ayay tiri marka ummadda islaamka ah waxaan ka codsanayaa hooyo macaan ummadda muslimka oo dhan baan hooyo ahay waxaan ka codsanayaa inaad is caawisaan meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibadda ayaan idinka codsanayaa. haddaba waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed ee wanaagga iyo khayrkaba jecel walaal hooyada dareen hadlaysa ee inantu ka xanuunsanayso Ilaahay dartii ku caawiya miisaanka xasanaadka Ilaahay ayaa idigu dari doona maalinta qiyaamaha waxaanad ugu soo hagaajinaysaan wixii aad awoodaan taleefan lambarkeeda oo shaashada ku qoran.